laascaanood qaylo badan baa laga yeeshay dadka laga hadlay horta waxaan ii sheegayaa waxaan la hadlayaa anugu la hadli maayo gobolladani waxaa kala hadlee jicmeel qurba ka dhexaysa qaybta leedaha ooja oo aada uga hadashay waxaan filayaa waxay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka qaxay aanay wax u qabanaynin oo aanay dadka kale beelaha ku xereeyaan aanay wax u qabanin dadkaasi waxay yimaadeen iyagoo cayro iyagoo qaxootiyo baydhabo ka yimid iyo meel ka fog 30 sano ka hor maalin qura beebiyaa may siinin maalin qura bac may siinin maalin qura kiin kaneecada iskaga ilaayaan may siinin soddonkaasa maxay ku darseen maxay u qabteen hadday oja ka naxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu soo waayeen maxay u gargaari waayeen oja maxay maanta uga qaysa waa laba wajiiranimada jimciyadda qurba ka dhaxaysa marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanayaa in laga sameeyo dadka iyaga aan ka laascaanood in laga sameeyo lacag lagu dooro ojo iyo jimciyadda qurba waa ku ceeb caalamkana way ku qaldayaan gobollada kale aada u hadlaya ee dadkii baa la xumeeyey oo waanu soo dhaweynaynaa ee ka mida soomaaliya waxaan leeyahay 30 sano joogeen qof qura oo reer baydhabo ah oo soomaali galbeed koonfura oo lagu dilay somaliland ma jiro qof qura oo xaqdaray lagu sameeyey dhowrkaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hantiweeda laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helayo puntland oo aada urbaanka u tuntay maalin qura 17 canug oo 20 gaarin intay soo qabteen yidhaahdeen dil baan ku xukumay inaa wax dilayay haddana maantuu ahaa waa soo dhawaanaya bac baan siinaya 17kaa ilmo waalidkood baa joogay ma maxkamadday soo ogaabay ahayd yaa maxkamadda ka qiraar ahaa kii soo qabtay kii dacweeyey kii xukumay kii dilay isku mid bay ahaayeen magal bay heleen qolada soomaaliya baydhabo joogtaa sanad aan lagu dilin boosaaso iyo puntland meel dadka koonfur galbeedkeeda ma jirto xamar iyaga ka hadli maayo af loogu hadlaaba inoo banaano meel dhiigga bini-aadmiga laga baaxbitirayo in maalin walba dad lalaayo haddana ilaa weynitana aynu wax kala ku doonno xamar baa jirto ka hadli maayo kuwa ugu dulmiga badan lagu laayaana waa dadka koonfur galbeedka yimi maxaa ka dhacay baydhaba maadaama aynu dowladtaag darannahay oo dhaqaalo badan lahayn dadkana ay bateen jimciddii qurba ka dhaxaysanaa dayacday oy u sameyn weyday wax taakulayna siiso qolada u qaylanaysa iminka ee joogta baydhabo ka madaxda iyo kuwa xamar ka yaqaana ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu hadday nolol ka helayaan oo ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyaya iminka oo annaga nasaariya eed aanaan lahayn carruurtii wax magadsada ay ka dhegaysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan heleen ma yimaadeen ku joogaa iyagaa dayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kari weyne miisaankooda nabadgelye ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kari weyne maxaanu sabanay marka in ka badan 30 gaari baa la saaray gaariga tira go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxaa la saaray 10 koosaroo tumaya iyo 10 kartoon oo biyo ah iyo waliba wixii dawal u baahday gaari walba oo dadka qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari soo ka gaari waxaanu raacinay ciidan technica oo ammaankooda sugan ilaa intay nagala wareegayaan puntland qof qura iyo ilmo yar oo kooda xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay 2,000 ee qof intaa leeyahay qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan oo gaarsiinay halkii aan la doonay dowladoodii bal waxa ooja u qaylinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qaylinayaan ee layda baa la xumeeyey maxay tahay taa intaasoo warar ku dhaafaya